aniga hooyada bay saaxiib aan lahay ducadooda maanta heerkan taaganaa ku soo gaaray waxaan ahay double master waxaan ahay double badge aabe iyo hooyaday xilli ay waxbarashada iga bixiyaan waxa ugu dambeysay high schoolkayga high schoolkayga kadib aniga soo bushgarey caqabado badan aan la soo kulmay dad xun iyo dad fiican baan soo arkay saas ay tahay waxaan talada mar walba u laaban jiray aabahay hooyaday dhinaca dhowcilaha iyo markii la yaryaa waa maqshay magac dhowcil ay igala tali jirtay xaliimooyinka aaban wuxuu igala talin jiray waxbarashada iyo dadka caqabadaha igu ah wuxuu dhigi jiray dhag ha u dhigin mar walbana waa ii duceey jireen ilaa dhibaato badan aan la soo kulmay 13 sano oo jira shaqo bilaab shaqadan bilaabayna waxa waa shaqo aan hadeertan waa ka faanaaba ya shaqo lama dhigi kara taas laakiin waxay ii ahayd tababar hadda magaalada waxa ka jiro gabdho yar yar oo waxa jira inay waxbarashadoodii soo aadaan oo caqabad u ah faarax oo indha kale aan lahayn oo gabadhaas wadada ka habaajinayo ama waalidkii ku diraayo tan waalidka hadii oo meel laga bixiyo gabdhaha dhamaantiina waxaan igala hadlaa waalidkiina hadaad saaxiib ka dhigan bahaladu in cunayaan waalidka haday qaar waxa jira waalidiintii ay dhinteen oo waalidkii nooleen hadii walaalka ama walaasha saaxiib ka dhigan waraabaha uu ku cuna marka badana saaxiibka gabadha laguma kalsoonaan karo hada in sheega waa ibn aadan leeyahay ilaahi subhanahu azza wa jalla qofkan bil aadanka xumaan ismaan buu la iman karaa marka asraarta horta waa la qarsadaa waalidkana hadaad sir walba u la cararto marka dambe wax xuna loo cararaysaa way naxayaan waxna kuma dhihi karaan indhe taagtaagayaan ma iska deysid ay ku leeyeen waxyaabaha qaar guusha lagu gaaro ee aniga aan ku gaaray oo maanta masib wanaagsan ku joogo oo adoon aan ugu baahneen kale taariikhdeyda ma ka warqabtiin dhibaato badan aan la soo kulmay maanta dadkii dhibaateeyay oo dhan ilaahay iga aare koow gabar ilaahay ku xirnaada tan koowaad gabadha hadaad shantaada salaad ilaaliso waalidkaadana aad baari u tahay adoon ku hor istaagi karo oo ku dhibaateey karo ma jiro wallahi يعني بارنمada ilaahay iyo baarinimada waalidka way isku xiran yihiin rida rabbi fi rida waliday wa saqatu rabbi fi saqatu waliday dad waalidkaaga ilaahay caradiisa u baahan tahay waalidkaaga ka careysi hadad ilaahay farxadiisa u baahan tahay waalidkaaga ka farxi gabdhaha caqabado badan ay gaaro ani waxaan aaminsanahay gabar kasta way shaqeyn kartaa duruuf kasta way ka gudbi kartaa waalidkeedna way la saaxiibi kartaa maanta waxa laga yaabaa gabdhahan inay qaarkood nolol farxad leh ka soo wada baxeen ee waligood dib soo arkin gabar waxa jirta dad gurigooda talisa ka ah iyo mid loo taliyo iyo mid maalin walba dhahaysa habartaana ay dhibtay meel ma ka aadi karibo habartaa kuma dhibin adaa is dhibtay way habartaa waxay kula rabtaa gabar wanaagsan habarta aal kuliisatada gabadheed inay fiicnaatay jeceshay waa mid dabjirade marka habar balaayo hadaad aragto meel taagan waa laga cudubleystaa gabar balaayo soo ahayd marka adigoo gabar balaayo noqonin aad waalidkaaga waxa loo noqdaa baari cid kasta oo ku dhibaateynaysan dhagaha laga xirtaa keep going allaabo ama baaya waxa igu sameysay wax wanaagsan waaye 10 yihiin waxbarashada iyo noloshaada inaad hormariso qalbiga ka imaata hada bug qaadato oo baxdid oo macalinka u tagtid iskoolka fadhiisatid maskaxdii ay ku maqan tahay meel kale ama faaraxa noqoto ama xaafado kale qalbigiina oo waxbarasho u soo jeedin hormar seeha adiga rabtaa waalidkaaga see u la tacaamuli kartaa see u nasiin kartaa waalidkaaga aniga waxbarashada waa ku soo dhibtooday shaqo waan ku soo dhibtooday xiriir saaxiib iyo walaal iyo kulli waxana dib soo arkin male maantane dadkaas oo dhan ima dhibaan ilaahay iga guuleeyo hooyaan ahay
caruur haysato waan shaqeeyaa waana la shaqeeyaa waalidkayga ducadiisaan aaminsanahay iyo sadaqada inaan intaas ku gaaray maalin waxaa dhacday waxaan arkay aabbo waayeel ah aabbahaas waayeelka ah jidkuu taagnaa duruuf aad iyo aad u weyn ka muuqatay qof waa taqaanaa markuu u baahan yahay wejigiisa ma wanaagsana faruurihiisa xataa daray ahaayeen aabihii baabuura wada waana istaagay waxaan ku yiri adeer maxaa qaldan uu hadli waay ileen waa qof gaajadii ridatay oo meel fadhiistay aabihii markaan la hadlay la sheekaystay ilmo waxa u jooga gabdho waxa u jooga shanti ah iyo wiilal waliba ka sii daran waalidka macnihiisa dad aqoon ilmahaas gurigaan waday aabihii waa geeyay wuxuu u baahnaa in waan ka caawiyay guriga aan taga maxamed dabjira waa dhax fadhiyaba oo feero waaweyn adeer waxaan maxay ahaayeen adeer anaa dhalo yir waa caasiyaal adeer adiga waalidkaaga se ula tacaamuli jirtaan ku yir ilaa meesha ku jirtaa moogta quraanka noo sheegay wax walba adeer waalidkaaga adisa isku heedeen ani waalidkayga ma soo korinin mana is arki jirin baadiyaha jiri jireen waana dhinteen waalidka xiriirka aad ka jartay ilmaha ka jarteen aan ku yiri waxba u shalay ayakuna waxaan u sheegay waxaan ku yiri waalidkiin sida ula dhaqanteen kuwiina ka fisha aan ku yiri sida yeesha lagu yeelo waalidka ku duceeyaan marka gabdho halka talo in ku darsanayo waxay tahay maadaama barnaamijkan gadaal ka imaadeen wax badan ka fahansaneen wixii dhaafay gabar kasta waa ordi kartaa adoo ordaysidna waa ku fikirtaa hadaa kuftana waa kici kartaa horta taas inaan niyada gelisaan ku ilaahay la sheekaysta qolka adiga waa seexan kartaa soo ma habeenku waa baxay qolkaaga marka tagtid waa seexane telefoonka inta aad qabsanin laba rakac salaatul haaja la dugtaa haday dhibaato ku hayso haddaan nimcaysan tahay laba rakac salaat shukri la dugtaa haddaad faarax balansantihiin guurna laba rakac salaatu istiqaara la dugtaa haddaad shaqo u baahan tahayne laba rakac salaatul haaja ama istiqaara la dugtaa ilaahu haday qeyr ii tahayna ii xij haday shar ii tahayna ii dhaafi way marka heshid haddaad la adahayna ilaahu rabbi raxmaan oo tala adaan ku saartay isi shaqadaas markii aad ilaahay la sheekaysato wax badan boqolkiiba boqol way ku hagaagayaan waalidka waa loo tagaas wax kasta waxa la yiraahdaa aabi hooyo ii duceey ducadin waxa aaminsanahay dhagax xataa doo iga hormaadin iga bixi burburin karto shukaansigan oo sanadkan jiran iska ilaaliy gabdho yar yar aan aad ugu jeedaa mumkin ana waan gooynaay kuwana waxa safkan isku la jirnay jaamacayaashan wada shaatiga wato ma wada wanaagsani ogaada wallahi dad badan waxa jira aan gooban ka shaqeeyo joogan maalin walba waxaan isku dagaalnaa naag fiican magaalada ma joogto warkaale kulli maada xumeys xalimooyinkan magaalada ordaaya maada wada xumeys oo wada xijaabka wadaan anda waxay yiraahdaan anaga ma xumeynina ayakaas xumeeyeen hadduu faarax ku soo waco waqtigaaga ka muhiimsan meel lagu balamiyaha aadin abaayo gabdhaha quruxda badan wax badan oo waxa jira dhibaato ah oo magaalada ka socota laana waxa mararka qaar jiri karto caqabado ah ina gurigiina qof kula kulmi karin caqabad ah inaadan guriga bi'ada deganta ku saamixay inuu qofku ugu yimaado laakiin haye walaal waa saarkeena dha insha Allah ana ku soo sheegay meel tag fadhiiso ku balami insha Allah bidmillaahi kariim gabdhayga quruxda badan ilaahay ha lagu xirnaado shanta salaad dad ilaaliso sharaftaadana ilaaliso you can keep going every day is new day abay waxaan ku leeyahay jaaniskaada ka faa'iideyso wajigaada quruxda badan halluminina salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u heshid macluumaadka ka daahsoon fadlan saaxiib joogta la noqo xog bile